Assalamu alaikum tout le monde, bienvenue dans cet nouvel épisode de Jeep Trottoir. Maintenant, on va quelques questions pièges au magaalada la dhaxduuri doono juste pour voir bal maskaxdoodu say u shaqeyso dadkeena reer Djibouti intay soo jeedo iyo intay hurdo. Let's go. Assalamu alaikum, magacaasa? Je m'appelle Zinedine Ali Hassan. magacaygu waa Mahdi walaal. Je m'appelle Hawa Habib Mohamed. Bulu kiriya la yiraahdaa oo ku magac dheer Ishqi. Filsan Maxamed ala ku magac dheer Fili baa la yiraahdaa. Assalamu alaikum, magacaasa? بابسح oo maxaa boobta? wax wal ku boyn wala bابسح waxa ku boobin ba wala boob. Naam, boobow su'aal baan ku hayahay. Mucayda hooyadeed inanta dhashay odagaygu muxuu ku yahay? de taashaqada ka baxda xog tirada kuma jirtaba sidee tirada ku jirto? kuma jirta baba maxaa dhacay? waxba ima aha yalla. waxbay ma aha waxbay ku tahay maskaxdaada. waa fahmi faatigay ku jirta iyadu fahmi faatigay mi waa fahmi caadiye boobow madaxa garo meeme kuma jirta ay ka shaqeysay madaxa ku soo celi su'aalka daba mucayda hooyadeed inanta dhashay odagaygu boobe muxuu yahay? boobe kaasi kookon buu yeeday wallahi international final Mucayday hooyadeed horta waa ayeeyday inantay dhashay waa mucayday odageyguna de waa awowgay buu noqonaya. Naamtu billah. Mucayda hooyadeed inanta dhashay odagaygu muxuu ku noqonaya? mucayday hooyadeed inantay dhashay waa hooyadeedii kadib ugu soo Allahu akbar. hooyaa war soo jeed dhageyso on kugu celinaya miyaaradii buu saartay naam mucayda eeg diyaaradda gaariga si fiican la soco mucayda hooyadeed inanta dhashay odagaygu muxuu ku noqonaya? awowday bariidi waa maxay hooyii waxbay geysay awoway u noqonaya waa ka soo jeeda su'aashan ku waday waxay tahay walaal dhakhtar baa gubanaya iyo iskool ambulance-kii baa imday kuwa ugu hor baqteen. Donc horta de dhakhtarku ha dambe iskoolku ha dambe tu vois parce que waxa dhiganaya dad caafimaad qabo ayaa imanayo macal wala wada caafimaad qaba mais le problème waa dhakhtarku inuu ugu horgalo ambulance-ka parce que maalad baa yaala dad baa kooma ku jira dad baa wax walba u baahan dad baa tuu ma garan donc marka hadaan waxa oran lahaa raayigayga dhakhtarka ugu horeeyo ambulance-ku après iskoolka uu yimaado parce que iskoolka dadka dhiganaya police way caamadii karaan oo aduu iyago caafimaad qaba xaafadooda ka soo baxeen nin caafimaad qabin xaafadooda kama soo baxay ma garan donc waa ka daanu saawan ku oran mahadsan dhakhtarka gubanaya iyo maad aragtay in iskool battery Soomaa horta ambulance waxa ma baqtiyo ta kale in plombier ayaan horta u yeeri lahaa ya laakiin ambulance waxa ma baqtiyo plombier un baa iskool baa gubanaya il est en feu iyo dhakhtar ma garatay marka ambulance-kii baa imiday ku baqtiinay horta ke priorité-ga ku siinay iskool dhakhtarka de hay waayo dhakhtarka dadkay haade baska dad malaad baa jira ma dadka buu de dadka naga horeeyaan de okay dabe wada adiga aad ku dhex dhimatay ma anu waa caadi waxa ka horeeya dadka dhimanaya dadka bukade marka Zinedine ambulance dab baqtiinaysa wali ma aragtay une maison d'un riche et une maison d'un pauvre. L'ambulance est arrivée. Quelle maison est-ce qu'elle va éteindre en premier? Celle des pauvres. Celle des pauvres. Ouais. Pourquoi? Parce que si les riches, ils peuvent construire une maison, alors que les pauvres ne peuvent pas avoir une autre maison. Ah, c'est vrai. Ouais. Tu es pour les pauvres. C'est pour les pauvres la priorité. Priorité pour les pauvres. Où est-ce que vous avez vu une ambulance qui éteint? aqalbay wala joogan nin indhala nin paralysé iyo xariif dhagala aqalka waa bilaa koraan sunigii baa soo dhacday albaabka ayaa furi waa baabba tirbiqada mi albaabu leeyahay aqalka bilaa koraan weyn sunigii baa soo dhacday oo de qof dibadda taagan albaabka la korana sunriisay soo dhacay naamtu billah war ciyalku maanta way soo jeedaan aqalbay ku wala jiraan dhagoole indhoole iyo nin paralysé aqalka waa bilaa koraan sooniridii baa soo dhacdo de qof dibadda taagan oo soonirigii qaraacay ayaa ka furi indhoolaha horta indhoolaha dhagoolaha taabanay koornay waxba la gargaraacay fur dhagoolii baa kacay indhama indhale indhii uu iska arkayay markay uu tagay furayaadi saawiyan d'accord waxa tiri haddaan si fiican ku fahmay indhoolihii baa maqlaya dhagoolii buu ku oranaya kaco albaabka fur sida loo furo marxaba haye adigu waa jawaabtaadii polo jawaabtaada aanu jawaabteedu waxayaan dhagooloo ka xumo maqlayaba kii baaliseegi yaan la kacaa paralysé-gii baa kacaya baaliseega
ayaa wax maqashiinaya isaga oo ka oranaya kii dhegaha qabay ka oranaya albaabka fur marka dambe ayaa kii dhagoolaha la fahansiinaya isagana saaba hadal ku soconaysa ku fahmi adayaan kugu sadex aniga haddii raygaan ka hadli lahaa in waxaa tiri aqal ayay ku wala jiraan indhoole iyo nin barazili iyo ku dhagoola soo maha marka sonori buu leeyahay aqalku marka sonoriga waxaa maqlaya ka barazila lixaad kale laakiinse dhagaha qaba ee indhahana qaba marka ka barazila markuu maqlo garaaci wuxuu ku oranayaa ninkii lixaadka qabay ee indhoolaha ahaa ayuu ku oranayaa maad aragtee in waa la garaacaya marka kii dhagoolihii ayaa furaya ayaa fariidaatiin way soo duurduuriseen waan soo duurduurnay marka aqalku bilaa kooraan hadduu yahay sonoriga maxaan ku bilaabay sheekada waxaa ku beeyor ay camirin waa gashee oo la gashee maanta haddaa 5 milyan franc Djibouti gacanta laga saaro waxa ugu horeeya maxaa ku fileed waxa ugu horeeya waxa ugu horeen ku filaa miskiid baan ku dhisi lahaa iyo agoontaan ku caawin lahaa iyo masaajido iyo miskiid iyo iskoolaan ku dhisi lahaa saan horumar aan u helno dadku walaadikay noqdaan 5 milyan baa tilmaa 3 milyan horta abaar dhig 2 milyan baa soo hadhay 2 milyan waa dadadin lahaa umadaasi u qaybin lahaa kow umada de ma miskiinin mise waan miskiinin wixii ka soo baxay kii jaajir kii miskiin waan isku kamidkii ma garat ina 5 milyan baa hayay ma garat 3 milyan soo hadhana baarto baar aniga weey nafteeda naftaada ku paariyeenaysa ya miskiid waxa sheegay sida la dhisay daraaga ma waa ka anu shimbirahan caawinaha aniga hore bilbila ka socda shimbiraha oo dhirginahaaba masaakiinta u horeeyna wixii de aan ku caawin karin aan ku caawinaha waxaan ku cishqiyow aabba sidigi muxuu ku yahay igu degdegna aabahay sidigi muxuu ku yahay sidigi ami mana Farid polo aabba sidigi waa naftigaan anigu celiyo aabbaha sidigi horta sidigi waa ayo muxuu yahay saydigu waa gacalka marka aabbaha de qofka sidii u noqonaya in abti horta ku ka soo galay mayde walaalaha ma isku imaan haddaan doonan walaalaha la isku yimaado haddaa la doono haa si loo doono dee walaal baa la noqdaa marka waa in abtigaa baad u tiri adiguna maxaa tiri aabahay baa tiri seedigii awowii noqonaya war waa abtigiin ragan abtiga waa gacalkii de waa gacalkii dhinacan baa iskugu timaadaa baan kuri waa dhinac wax kasta uu iska noqon karaa wax kasta uu iska noqon karaa sawa ku raacay